hawshooda ayay ka bilaabaan diyaarinta cunooyin fudud oo ku habboon afurka intaasi kadib ayay gaaraan mid ka mid ah isgoysyada Muqdisho oo marka hore ay qorsheysteen halkan waa isgoyska Soobe oo maanta ay ugu talagaleen dhalinyaradan inay ka fuliyaan mashruucooda afur qaybinta oo socday 5 sano ee la soo dhaafay waxa ay istaajiyaan gawaarida oo ay u qaybiyaan cunooyinka ay diyaariyeen iyaga oo sidoo kale uga faa'iideeya dadka jidadka lugeynaya mashruucan waxa uu ma darnay afurku gaar wax kale ma aha waxa uu ka kooban yahay afurku bixin laakiin waxa bixinayna wuxuu qofka afurkiisu si gaar ama afurku gaar waxaan main targets ka aan leenahay waxa wadooyinka ayaan istaagnaa qofka xamalataha kinoo ka soo dahay gurigiisa oo gaar waa gurigiisa qofkii shaqada ka imaaday qofkii maskiinka wadada taagan qofka afurkiisa waayay ayaan waxaan siinaa afurku gaar wax kale ma bixino waxaan bixinaa xabad sambuus ah 5 xabad timir ah bur iyo dhalo caafi ah ama water oo biyo caafi ah ayaan bixinaa waxaan leenahay dadka afurkiina ku sii gaara sababta uu soo maahatay fikradan waxa waaye waxaan aragnay baahi jirto oo mujtamac Soomaaliyeed u baahan yahay dad in is caawiyaan waxa u baahannahay yad almaanixa yad wax wasiisa u baahannahay maxamed yacquub cismaan oo ah madaxa suuqgeynta ee shirkadda Amal oo dhalinyaradan ka taageeray mashruucan ayaa tilmaamay in hawshan ay mudan tahay dhiirigelin Amal Bank sidiisoo ma ahan bangi kaliya ee ka ganacsada oo sidoo kale bangi ka qayb qaata waxyaalaha khayriyaadka ama xal sheegeen ummadda bulshooyinka ku saacido waxa kamid ah barnaamijka hadda afurinta kale waxa ugu talagalnay barnaamij aan ka saacidnay ilaa 1 bisha ilaa 30 Ramadaan ina maalin walba ku afurin dad dhan ilaa 1000 qofood sidoo kale bangiga Amal kaliya ma ahan xal sheeg bangi ganacsi wuxuu sidoo kale aad u taabageliya ama maxaa sheeg horumarsiya ganacsatada yaryar dadka dhibaataysan iyo bulshada sidoo kale loogada Amal Bank waxa markasto astaan u ah horumarka qofka qoyska iyo maxaa sheeg iyo dalka marka waxa aad u mahadcelinayna mar kale iyo mar saddexaad barnaamijkan rag nagala qayb qaatay dhamaantood anakan waxa aad u jeednaa insha Allah in sanadada soo socda iyo maxaa sheeg in ka badanba inaan sii taabageli doono barnaamijyada noocyada kala khayriyaadka Muhidiin Macalin Cabdullaahi TV Muqdisho